Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabadii daawadayaal ku soo dhowaada warka caawa. Halka igala socotaana waa Joogdhowr Media. Daawadayaal waxaan idinka codsanayaa inaad like iyo share ku qabataan isla markaana subscribe garaysaan. Qodobada wararka ugu waaweyn waxaa ka mid ah doorashada Jubbaland oo qabsoontay isla markaana Axmed Madoobe uu ku soo baxay isla halkiisii. Waa isku caanashoobay dadka qaar leeyihiin waa hadalka u dhigeen dowladda Soomaaliya arrinkaas aad uga xanaaqday isla markaana ciidamo u qaaday xagga iyo Jubbaland. Dhanka kale ciidamadaas waxaa la sheegay inay isugu jiraan Harimacad iyo ciidanka loo yaqaan Harimacad iyo ciidanka loo yaqaano Gorgor, halkaasoo la gaarsiiyey cutubbo ka mid ah ciidanka qaranka oo la leeyahay waxaa lagaga hortagayaa Axmed Madoobe isla markaana la dagaalami doona Jubbaland amaba ciidanka Axmed Madoobe. waayahay qodobka ku xiga aan u gudubnay ninka loo yaqaano Maxamed bin Salmaan waa ninka boqortooyada Sacuudiga dhaxal sugaha ka ah ayaa isna waxaa la sheegay inuu soo qaaday xaramka naaga fataalada iyo qasiisiin isugu jira kuwaas oo ka soo qaaday wadamada reer galbeedka isla markaana la arkayay iyagoo halkaas sawirro ku galaya iyo riwaayado iyo waxyaabo aan ku banaanayn xaramka isla markaana Kacbada isku soo sawiraya. Dad badan ayaa ka muujiyay cadho iyo dhif isla markaana waxaa la arkayay sheegay in gabadhii isagu qabay ay aad uga xanaaqday isla markaana ay furin ka dalbatay, halkaasoo iyana caalamul islaam isaguna uu falcelin badan uu ka soo jeediyay. Waxaa la arkayay dad mudaharaadaya isla markaana ka soo horjeeda oo ka mudaharaadaya gobolka Cayn gaar ahaan magaalada Buuhoodle isla kuwaasoo iyaguna ka soo horjeeda madaxweynaha SSC Khaatib Cabdiqaadir Axmed Cali Firdhiye, kuwaasoo ku eedeynaya inuu kaga hor yimaadeen waxyaabo kala qaybinaya reer Buuhoodle isla markaana iyagu ay diidan yihiin laakiin ay taageersan yihiin dowladooda iyo SSC Khaatib iyagu ay taageersan yihiin ay ka soo horjeedaan oo kaliya Cabdiqaadir Axmed Cali kaasoo ay cuskadeen arrimo iyagu ay sheegeen inuu yahay kala qaybin iyo nidaam iyo arrimo la isku fahmi waayo. Si kastaba ha noqotee dadkaas waxay dadka cadhaysan madaxweynaha maamul goboleedka Khaatume State isla markaana leh waxaan ka soo jeednaa Firdhiye. Haddaba waxaan oran lahaa ha iskhilaafina dantiinana garta madaxweynihiina ha ka hor imanina. waa mahadsantihiin daawadayaal. waxaan usii gudbinaa Axmed Madoobe ayaa isaguna waxa uu isku soo hagaajistay ciidamadaas oo kaga hortagayo duulaanka lagu soo qaaday ee uu ku soo qaaday dowladda Soomaaliya isla markaana ciidamadaas oo kaga hortagayo waxa uu sheegay weerarada kaga imanaya xagga dowladda Soomaaliya isla markaana uu doonayo in uu kaga hor yimaado weerarka kula difaaco qadiyadiisa iyo qarannimadiisa. Axmed Madoobe ayaa wuxuu isku soo hagaajistay ciidamadaas oo ugu talagalay inuu ku difaaco Jubbaland, halkaasoo la arkayay tiknika fara badan oo Axmed Madoobe isku soo hagaajistay isla markaana uu soo dhoobay jiid hore, halkaasoo uu ciidamadaas uu heegan geliyay isla markaana uu ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay ka waantowdo inay weerar ku soo qaado Jubbaland iyo dadka isdoortay isla markaana ku tilmaamay doorashada isagu galay mid xor iyo xalaal isla markaana lagu wada qanacsan yahay. Halka uu ku eedeeyay Xamse Cabdi Barre isagoo hadalka aad ugu tiiqtiiqsanaya. Xamse uu yiri waxaa tahay in loo soo adeegsaday dadkiisii. waayahay imikana xagga iyo boqortooyada Sacuudiga maraweynta carabta ee boqortooyada Sacuudiga gaar ahaan ninka dhaxal sugaha ka Maxamed bin Salmaan ayaa baryahan dambe waxaa la arkaya xaramka oo ay joogaan koox dumara oo isugu jira kuwa dhaansiga ciyaara iyo fataaliin iyo naagaha jirkooda ka ganacsada kuwa isqaawiya, halkaasoo heeso ay ku soo bandhigeen iyagoo isla markaana sawir weyn oo Kacbada loo ekeysiiyey ku dul jaasaya. Falcelin badan baa ka dhalatay isla markaana muwaadiniin Sacuudiga u dhashay baa ka mudaharaaday. beydkii Ilaahay ayaa waxaas fisqi la doontay nimanka maraweynta ah oo baryihii dambe dad iska dhexgalka bulshada wax la yiraahdo buu keenay. Markii dambe xaaladii ku soo adkaatay oo dadkii ay dilay wax la arkayay ayaa waxa uu sameeyay wuxuu Ilaahay baan u toobad keenaya.
si kastaba ha noqotay waxaa la sheegayaa boqorka sugaha Sacuudiga ka ah in gabadhii uu isagoo qabay ee afadiisa ahayd ay iskaga hor yimaadeen arrinkaas, taasoo ka dalbatay in la furo islamarkaana isaga iyo iyadu ay kala dhaqaaqaan. waxaa kaloo ay tiri dadka Sacuudiga aad caburinaysid waxa weeyaan intaasoo dhan aad caburineysay iyagana waxa weeyaan waa inaad ka sii daysaa. shuruudo badan bay adigu soo bandhigto ay leedahay dadkaana waa inaad jeel ka sii daysaa xorriyatul qowlka ku xidhan oo waxa weeyaan hadalkoodii ay hadli lahaayeen keliya taa awgeed u xidhan. anigana waa inaad furtaa adiguna ilaahay u toobad keentaa. waxaa la sheegayaa markaa ninkaa in arrin jiq ku tahay oo xaaladii ay aad ugu adkaatay. waxaa kaloo casilay wasiirkii dalxiiska kaasoo isagana uu arrinkan dee isagana sababteeda uu casilay. si kastaba ha noqotee ninkaasi waxa uu faraha kula jiraa fal aan fiicnayn. muslimiinta iyo beesha caalamka ee muslimiinta beela caalamka kala jirtaan iyaguna aad iyo aad beerka uga hadleen, waa la dhaleeceeyey. marka wuxuu la soo istaagay waxaan dhisayaa intaasoo masaajid, ilaahay baan u noqonayaa. dee intaad ilaahay u noqonin ilaahay xumaha loo noqdee ma inaad naagaha noocaasa keentay waa masaajidka wax mas-uuliyad qaadi karaba maaha. aad iyo aad baa u mahadsantihiin wararkii naga soo gaadhay caalamka. inta aan kaga gudubno guud ahaan wixii war kasoo cusboonaada khilaafka ka dhexeeya Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland isagana waan idinla socodsiin doonaa insha Allah. waxaan rajaynayaa in arrinka waan lagu soo dabaali doono oo waxa weeyaan colaad Soomaaliyeed oo Soomaali dhexdeeda colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho, islamarkaana kulli miiska wada hadalka la isugu iman doono. wixii la isku maandhaafsan yahayna waxa weeyaan si ay hufnaani ku jirto la isula eegi doono. dadku waa dad Soomaaliyeed, ma ahayn in maamul goboleed Soomaaliyeed lagu duulo islamarkaana iyada oo aan la dagaalamayn khawaarijtii oo halkan taagan ciidanka halkaa lagula dagaalamayo waxa weeyaan maamul goboleed Soomaaliyeed oo taagan lagula dagaalamayo. waxaa fiicnaan lahayd in khawaarijta lagula dagaalamo halkaasoo aan moodayn dee habacsanaan badan ka jirto oo waxa weeyaan iyo khaladaad badan. waxaan leeyahay ilaahay iyagana xaqa ha tuso. qolada reer Buuhoodlana waxaan leeyahay war maamulkiina baa idin dhisan, nabadgelya joogtaan. bahasha waxa weeye dhiig baa usoo qubteen, in badan baa dagaalamayseen, idinkuna waxa weeyaan maamulkiina faraha ku hay oo ha ka hor imanina. shacab baatiin shacabkuna waxa looga baahan yahay in ay maamulkooda adeecaan. guud ahaan wixii war inaga soo gaaray caalamka Soomaalida intaasaynu kaga gudbaynaa daawadayaal. warkan warka xiga intaynu isugu iman doono waa aniga oo idin leh fi amaanillah, kulanti wanaagsan insha Allahu tacaala. laygta iyo sheertana ku qabta oo sheer gareeya barnaamijka. aad iyo aadna waan idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.